كعتمسا ما وسه هياميسي قربها قيبتي لبعض نلشيدا ku qaadatay hadaba qurbaha qaybtii koobaadna wadankii bay ku ekeeday aamina mar kale okay BBC ay maaday dad maaragtay aniga role models ee ahaa codkooda aad dhageysan jiray banigii ku sheegay ku iri Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq saaray bandhiga raadiga heesta iskuulka la iga soo diray Axmed Xasan Cawke horta wuxuu ahaa the best friend of mine walaalka iigu fiican oo ahaa wuxuu ahaa qof aan isbedel Soomaalida inuu iska bedelo aanay ka muuqanin macnaha kama wada ragga kale way ka muuqatay laakiin waxaan noqonay dad close ah Axmed Xasan Cawke wuxuu qofka tala kasta isiya hadaan umulaayo in la sii diyaarsado boorsada oo dharka lagu sii rito qofka ii sheega waaye because sakriya yar halkan ugu dhashay isaga ilaahay naxariista walaalkay waxaan noqonay dad partners ah oo macnaha barnaamijyada wada sheega rumors fara badan banaanka laga mariyay waa isqabaa waa isjecelin of course was jecelna dad walaalo isjecelanahay ma garatay hadaan ishelayna way israbnay laakiin marka anagu waligeena isku maanan dayan inaan isguursanay inaan isukaansano isku ma dayan ma fahamtay wuxuu ahaa ninka kaliya oo gurigayga garanaya wuxuu ahaa ninka kaliya oo marka uu israaho domestic violence badan aan maray iyo shaqaaqooyin oo guri iyo waxaasaan maray ka farxi markii uu israaho xitaa intuu maaragtay lacagta baqshad galiyo walaalnimo iyo sadaqo ku qoro waa walaalka Axmed Yare ii galiye meesha jijiidka computerka leeyahay ii galiye ayuu ahaa ilaahay maanta waa iga hooseeyay ilaahay wanaagaas faraha badan leh horta walaalkay ilaahay ha ku jannada ku jazaa'iska waraabiyo oo ilaahay hortiisa ka siiyo because qofka wanaaga uu adduunka ku sameesto aakhiro ku helaa okay maxaa dhacay hadaba dhibaatooyin fara badan baa BBC-da aad kala kulantay oo aan kana maqlay adiga iyo waliba dadka aad soo wada shaqayseen iyo meelo kale adigoo laftarkeeda ka sheegaya waxaan rabaa adigoo maanta si guud uga wada hadlaya sidii xaqiiqadu ahaydna uga hadlaya maxaa kamid ah oran kartaa marka BBC xasuusto dhibaato ay adiga kugu soo dhacda BBC markaan soo xasuusto ma soo xasuusto dhibaatada hore kama soo xasuusto proud baan noqdaa inaan xilli wanaagsan ka shaqeeyay inaan dad qiimo leh يونس علي نور الله يرحم الراحمين هذا النوح دول سعيد علي موسى عبد السلام هريري dadku waxay malaynayeen nin weyn yahay laakiin igama weyna aniga daano iga yaray maxay ahay toon Axmed Xasan Cawke Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq maxay toon Maxamed Xaaji Siraad maxay ahay toon dalmara oo markaas sii tagay laakiin diimaha xageeda proud baan noqdaa sinna sad baan noqdaa because ma rabin inay noocaas ku dhamaato بشارة أنا جوها وذا هلا لبا أبيوس actually مدة أبيوس ها متك كلا هارا وحوها وحلا يراهدو بولين شقده وحا وهلا بولين دad كان هذا إنجليزي برتاي ودن كان إلى جوجا أما سومالي جوجتو بيكاب نجا إنجليزي بدنا بولين وحواية قفك أمر والبلا هند دل عبسي جليو مر والبابا لقى عريس مر والبلا تبى تاجنادو داتس بولين إلا نلشي سلا نعسيو جوريجنا واحد يقول هلا واحد domestic violence لا ده هايو شقاقة جوريجا أنا كانوا وضع كان واحد من أنا ننقبة هل عنو ننكاس أصاد علي لبدأ دي إن أنا هورن كسر شيء هو يدا يهايسو إسلا عنو جي يرانا one month أجرة يا أوريا شيء كي عنو جي أو أفر بلوجرنا وكسر تجي أنا أوركي ما يا عنو جي عشان بلوجرنا كسر تجي أوركي جنو أفر بلوجيا كي كله إنا كأوركي سلاها ها كان كود علي نينكي أنت سود دعوناي يقبي أن هذا يجران ضد برنامج كجدار كلا قبصدي this story is about me أنا يقول سابسن تاكم سابسن أنك لكن أنا قدن كي كان كشكينا ولا الكي صدق عرور أنا ولا يهرتا وتنكوش شغو أنو فرين كان دبسناي ولد كان كسومالي ده يقول جري مركا هرتا وانا أتكيست أنت صدق كان على جوجي أو طبيعتها قلفسن أنا أركي هذا الكوتشوجي لكن طبيعته قلفسنا وحنا صادح قالوا إن يوروب لا صو حيامه يا صادح كشيء إسنون يسكت صادف وربنا نينك يقولوا إيه ماذا وربي إن هل كان مركان من قف وحنا حبيبي سوقات تقف عدلة تاجر ما هين dad kula talina ayaa jira marka BBC dhaxeeda oo family-ga guriyaha sida loo kaleesto ku sheegay dadkaas oo dhan waxay ii sheegayaan wadankan qof ilmo haysto oo inuu kaligiis noolaadana adag tahay runtoodayna ahayd waddanka marka imaana Soomaalida oo dhan say sameeyaan lacagaha waxaan ku xisaabinaa annaga dollar inta pound-ka intaan dollar u bedelnaa dollarka Soomaali u bedelnaa wixina la weynaadaan laakiin waxa aad qaadanayso marka halkan ku isticmaalayso
wax ay yihiin ma laha nolosha caadiga ayay la mid yihiin waddanka markaan imaaday waxay noqotay in la yiraahdo waa inaad horta reer baan hostelka BBC da markaan ka baxay reer bay noqotay in qolka kireysto uur baan leeyahay qof uur leh oo meel ay ku nafista rabto meel dharka kala dhigata rabto reer ma ku dul nool ma la noolaan karto inkastoo lacag bixinay waxay noqotay in guri kireysto sukas odagii ma la ii keenay hadaan guri kireysan lacagtii waa yartaa bishaaro 24 sanadkeena lagu qaatay anaga markii hore 24 oo barrier waay marka barrierkaas waxa loo qaybinayaa maxay ahaytoonay sanadka inta uu ka kooban yahay 365 hadana waxa loo sii qaybinayaa hadana canshuur laga sii jaraa oo laba tax income tax waxa ku soo gala canshuurtoodii national insurance contribution oo lacagta dadka ay dhaqaata la siiyo صح okay intaas markii lagu kooxay hadana waxa bixinay guriga council taxkiisi guriga canshuurtiisi dawladda hoose guriga ka xaqaysay mata qashinka ka gurayso jidka maarata bilaa waxa aad maraysay wixii dhan baa wixii dhan waaniga council tax iyo wala bixin jira Soomaaliya laakiin anigu wax ba bixiyo way ugu cusbayd oo wax wadan shisheeye ku noolaado oo hooyo ii joogno aab ii joogno oo qof ii joogto aanay jirin oo hooyada carruurta iga haysa saddex kale iga haysa kii kale aan dhalay xagee geynaya marka anna waxaan iska ahaa dadka sida sharciga marwaba inay iskaga noolaadaan jeclo sharciga ka baqa احترامنا مرنا دنعنا وكبقى دنعنا واحترامه إلا هذا ساسانا هاي ما جعل الشرع إن قالوا ما جعل إن كرايم إيه مالت الدنبي وحين لا يقول سهله مركا وحين نقطع عرنجيجي إن ضد إيه هاي أجنبية ولا عقبة قاعدنا هاي مركا وح سهرة يا بسكير مركا وحين نقطع إن أنا كنا ولاده ما ركت تونا إيه باكت بينسي وح معنا لهاي قف أمله عنق الشيء ما فهمت أوكي هذا جي يمد هذا مركو يمد هالكاس لها بعد نفسه يسا دقالة باللود ugu bilaabay ugu bilaaba because aniga waxaan ahay awrki cidaan ahay awrki reerkaan ahay reerka miyiga degan awrka u dhaantaga wuxuu u sameeyay aniga awrki reerkaan ahay asaguna haduu shaqaysanayo looma diidine sharciga waxa laga soo siiyay aeroportka ka national insurance number waa inaad samaysto markaad sharci helayso shaqo raadsanayso national insurance number ka kolba waxaan u sameeyaa ballan uu ka boodaya ma rabiyo inuu taga ma rabiyo shaaninkan qorshe kale u dagsan anu qorshahaas lama ogi kamana midihi okay waxa dhacday markuu yimid hadana inaan uur yeeshay gabadha uurkeedii gabadhayda Sulaaqa uurkeedii ilaahay ku caasiimaayo walaalkayga ilmaha iga dhalna ku caasiimaayo like this what happened to me halkan ka bilaabata marka hadaan imaado shaqada oo aan imaado bush house booskaygii bush house oo xilligaas muhiim ah magaciisa inaan sheego bulin ila fadhiya gurigii hadaan tagana ninkii dhib ila fadhiya laakiin de booska qod kasta og meelo fara badan waa Yusuf kaligayna maaha cid walba Yusuf ka hadashay qof walba buli garay everybody mid dhintay iyo mid noolba wuu buli garay marka taas asaga dhinac baan dhigay buug dhan baa chapter dhan oo buuga aniga noloshayda aan ka qoro aan ku saabsan oo la yiraahdo aniga iyo Yusuf chapterkaas waxa la yiraahdaa aniga iyo Yusuf buugayga waxa la yiraahdaa wax kastaba kaligay because waxa maray hagardaamooyin badan oo kaligay inaan la tacaal ninkii markaan keenay oo ila joogo walaalkay magac kale uu yeeshay magac kale isku dhiibay magac kale uu baxsaday aniga inaan wadankan sharciyan ku keenay isna wuu isdhiibay ha sharciyan ku keenay sharci marka qofka ku keento waa sharciga raaca dan wuxuu noqday nin cusub ana ma oge bas aniga waxaan ahay gabar walacna ah oo ilmo caloosheeda galeen financial difficulties iyo maaliyadii soo galaysay ku maareyn lahaydna ay adag tahay dan waxaan noqotay shaqadii haday tagtana aan arxan ku haysan arxan waxaan ku haystaa walaalaha ila shaqeeya ma Cabdisalaana ma maxato cawka Allah u naxariistay ma Yunus badana markaas wuxuu jiray Soomaaliland ma aadan nuuxdula ma maxay hato Saciid Cali Musa everybody waa ay arxamaya waa walaalahay waa oo Soomaalinimada ilaalinay but this guy not dan urkayga soo weydaaday waxaa gaaray 8 bilood gabadhayda Sulaaqa urkeeda dhinkii guriga ii fadhiyo abuse-ka waxaa rabaa gabdhaha Soomaalida u sheeg waa kala duwan yahay abuse-ka waxa waa physical abuse mental abuse emotional abuse and financial abuse
afartaas ugu badan spiritual abuse ajirka anaga nama qosay because Somali ba guursanayna ningaala ma guursanayno ya spiritual abuse wuxuu imaada marka oo la sameeyo laba qof kala diimo duwan physical abuse waa jug marka geesa maarta daamanka laga jabiyo emotional abuse waa marka lagu caayo financial abuse waa marka lacagta iyo cunada aad guriga soo gashay telefoonka guriga soo gashay telefoonka la qarxiyo oo cunada maxay ahayd toona la misuse garay oo wax walba lagu dheelo emotional abuse al dhaha waxa la dhahaa financial abuse maxay mental abuse waa waxa weeye marka mar walbaba mentality-gaaga wax adiga ku dhibaaya marka lagu dhaho like maxay ahayd saana tahay oo kulligeed wax foolxun intaas guriga iyaga socotay maalintii dambe waa baxay 8 bilood ah wiilasha ila shaqeeya hadday maanta kuwa nool dhagaysanayaan barnaamijkayga way ogyihiin wayna xasuusan doonaan way fasaxayaan kan sumeelahan oo meesha madaxda ka ah BBC waxay qabtaa sharci policy la dhahaa flexible working ilaa hadda waa jira sharcigaas qaasatan markaas waxaa talinaysay xisbiga Labourka wuxuu aad xil u siin jiray familieska flexible working that means waxa waa gabadha shaqaalaha ah oo UK ka shaqeyso in ay shaqeyso xilliga ay iyada shaqada ku faraxsan tahay that's what means flexible working marka flexible working asaga aniga flexible working oo aan aniga sameyn karo waxa waa in gelinka hore la igu qoro shaqada laakiin gelinka dambe la iga daayo sax but this guy oo BBC xukuumaya waxa ka ahaa wuxuu igu qasbayaa inaan gelinka dambe ugu qoraya shaqada saas soo gala waay isagu wuxuu eegaya xilliga adiga ku dhibaya because jadwalka shaqada asaa qoraay Soomaa hadduna isagu qorno secretariat qortana asaa amraay soo marka maxaa dhacaya aniga foldid ahay lugaha ka barbarsan ka waxaysan wiilasha kale waxay dhahayaan aadan nuux dhuule iyo cawke iyo cabdisalaan iyo aamin abaay adoo sidan ah anagu reeraan leenahay maaragtay ma ku fiirsan karno anaga shaqada ka qabanayna bax bishaar ma baxay because daan baxo abuse kale aan aada guriga igu sugaayo ma bixi kari I just cannot go home da waxa jooga toiletka waxa jooga toiletka galab isku suuliga galab muraayada isku eega muraayada la hadla that's where it come from saaxiibta muraayad it was me the one who was talking to the mirror qofka la hadlayo muraayad is me it's wixii igu dhacay waa wixii aniga soo gaara waa wiilasha baxay dhaheen anima baxay because daan baxo oo guriga waqti hore tago dhibaatada guriga meesha ka bilaaban ilmahayga yar maxay ahayd Soomaali waxa la soo abaabay ilmaha lagu badul ooyo ilmaha daa ku dul ooyso dhaqankii ay igu jiro wadanka ilmaha ku badul ooyo ilmaha daa ku dul ooyso maxay talma waa ka dhimanay ama jiisi wala xilka noqona ilmaha marab ina ku dul ooyo and then I have to cry I need some space to cry meela ku ooyo u baahanayso masuuliga saaxiib la noqdo marka qof oo soo arko gabar marka raadkeeda soo maqo waxa ku ortaa campinga fadhiisana واسقرنا نفتا اسكو علنا مر gabadhaas baxay muraayada la hadlaa because I'm alone ninka guriga waa joogaa ka dalcid la dareema soo waxa u baahanaa marka qof aan la hadla aniga marka muraayada isku fiirnayo qofkii kale taa waxaan u wada qof kale inuu qof kale taa aan marka dambo I gave up hada ruux baabilo on that time the pressure ay ugu dhacay aniga weligay life kama sheegan حاملة أورا لها فول تايم شغالة يقربها 9 o'clock وأنا بوش هاوس جوجو شرع برقبة هذا شغالة جوجو I have to go back I have to go back what the keeper person because شرعي مبوحين وأنا بوحس 4 سنة إنا شقيست وأمريكا في الشقة كنت ماذا كبعد قاعدة دقناشو قحوتمي يعني ملي ميجان جلينين dadka qaxootiga waa dadka la magan galiyay oo wax kasta la siina guri la siina cunto la siina everything la siina I can't ma hooyada iyo ilmahayga aan ka soo tagay inaan u daraan raba haddaan baxo waxaas oo dhan ma imaanayo Soomaalida arko waxay dhahay ma shaqada iska joojisid ma markale isdi farma laga soo qaado ma isdhiibtid how hadda isdhiib aniga kow ka soo bilaaba sharaftii sumcadii iyo wixii ani intaas aan
ilaa iyo xanaano caruur aabahay igee ugu dadaala aabahay wuxuu igu igee anoo shaqada ugu sarreysa haysta inaan iska baxo ma igee dan abaay waa xanuunsada depression ay ugu dhacay ana maan fahamsanayn xilligaas gabdhaha i dhagaysanaya dadka i dhagaysanayana inay ila ogaadaan aan rabaa mental health immunity ma jiro jir difaac male mental health marka kugu dhacaa waa kugu dhacaa xaaladaana keenayso iskagama kaa dhacaayo depressionka markuu igu dhacay dan waxaan jeclaystay inaan nafta iska jaro I want to commit suicide 8 months uur 8 bilood aan leynaa isdilaa rabaa nolosha dhan aan nacay ma lahayd marka cid kugu dhow oo saaxiibada ama ehelada ood aaminsanayd ood u sheegaysay dhibaatada guriga ka haysatay friends ma qabo gabdho Soomaaliya ii dhow waanad aamini karin ma gabdho Soomaaliya ii dhow ayagana marka hore waan ka ilaalinay dhibaatadeeda because abay anay dhaqanka waxaan ahaa gabar dhaqanka ku dhagan reerkaaga wixii ka jiro banaanka ma loo sheego hadda waxa soo iska dhaafay television-ka sheegoya I don't care wixii la sheegayo wixii la sheegayn bas ma rabo inay aniga ugu jiraan 24 hours ma rabo okay maalintii aan rabay inaan isdilo marka maxay sameeyay temple meel la dhahayaa jirto laba station Holborn iyo temple bushaas u dhawa Holborn marka meel la iska tuuro ma laakiin temple jidka hadaa goyso river Thames ku yaal wabiga Thames dabaalna ma aqaano ani I want to waa ogahay inaan dhimanayo dabiyaha isku tuuro way dabaaladka ka baxsan ma badliida ماشي دربي استاج انا استورا ربع لكن على شيء سائد ودر ساعه دان دو على شيء حنون اسم سو قد كري قاب كاسكو توري الحياه كفكره مرك بطل وا اي كدمات انا استورا ربع I want to die ولقى اسم الهين انا استشوك فكرته مرحلة سداري دونتا حنون كان كينا إنا حنون سنة المؤكي وقت ما له دتك بي بي سي كشقي كل جود وأقول تايم ما له واس فصح سندات كانت قاعدة نسا فصح سندات كانت قاعدة نسا بس بركي الصومالي ما فصح سندات هدان قاعد تحت شد حدان عنق إنن كان إسكا جم تيجي كرو جبر أجر تحتها برروها مركز أنكينا أجوكت إلا بدأ سقونا لا كي كلنا على شاكوستان هدان تجاي أنا بس بارا كوبح ما قبض because I'm not British ما هنا حتى residence indefinite leave to remain حتى ما يست بس بركي الصومال قبض كامل أقول سنة ودن كي أفر لا تسع وإسعنا يعني meeshaad joogtid ay no rajo amina meeshaad joogtid ee BBC da dhibaatada ugu badan kaaga socoto Yusuf Garaad ma aaminsan tahay inuu adiga shakhsiyan si gaar ah ku beegsanayay mise inta la kulmayba wariyaasha ka soo shaqeeyay BBC da dhibaatada inta ugu badan ka sheeganayso la mid ka sheeganayay horta aniga dabeecadeeda dadka si gaar adiga lagu beegsanayo aaminsan tahay maya dadka ma aha horta dabeecadeeda laakiin aniga sida aan u maleynayo waxa waaye qofka markuu asaga le isma hadiyo Yusuf ani muu maleynayo xumaana uu dhashay inay tahay waxaan u maleynaa dadka qurbaha ku xumaaday inuu yahay ay kasadaan ma wallahi waxa ahsan u sameynay laakiin ama aan uga weerweernaay but that time he was very bad he was really very bad waxa kaaga daran aniga gabar ahay halka gabar oo markaas joogta gabdhaha gabar kale joogto Yasmin la dhahay gabar kale ka dhahay gadaalka imaad waxa soo dhan iska dhahay qofka full producer ka ah ee joogta gabdhihii hore kalena waa bixin Jawaahir Suleymaan Shamsabo kullu waa bixin qofka oo joogtay oo halka gabar oo codkeeda aad loo maqlaay ta iigu darneed waxay ahayd libaha ah marka dadka banaanka iga maqlaay because they don't know ina kamid waa dhageysanaysan ma ogidin waxaan ku suganahay ana kamid ah dadkii ku dhageysanay aniga dhexda ka dhimanay because abuse kugu socdo ee bullying kugu socdo qofka waa in qofka fiir qofka marka shaqada laga buluusay oo gurigiisa degan yahay qofka waa noolaa karaa gurigiisa degan laakiin labadiiba laakiin marka gurigana laga haysto balaay ka haysto shaqadana balaay ka haysto meel aan ku survive garoobaysa male ma fahamtay ewerka horna uma dhalan meelaha warwareego qof wuxuu dhalatay moogtahay qofka uma dhalan anaga dadka dhan beeqsana igu dambeys intaas soo ma aan arkay ma uga maqnay laakiin ma arkin ba okay amino adan kalka ka dhex galo BBC da waxaan xasuustaa dad badan oo dadka isla soo shaqeysayna inaan waqtiyo badan aan sheekaysanay oo ka maqlay way ogaayeen dhibaatada ana u sheegay dhibaatadaas hatta ku ajnabiga ogaay aniga abuse kala lagu haay shaqada dhibaatadaas dhaw ogaay taasi ku weydiinaya waxa weeyaan intooda badani deegaamada
yaabana odhan intooda badan de waanay ahaydba Somaliland iyo waqooyigan idhaahna bay kasoo jeedeen iyagu waxay iiga sheekayn jireen inay aaminsanaayeen inuu Yuusuf Garaad hab markaa haybsooc oo kale ama kala qaybin oo kale uu iyaga si gaar ah u cadaadin jiray u beegsan jiray adiga haddaba aamina ahaan haddaad Yuusuf Garaad sida dadka la isugu tiriyo dee magaalo ka wada timaadeen oo waliba iskuna dhowdihiin ba deen toos u nidhaahnaba ma u malaynaysaa taas inay waxna kaa badbaadisay ama aad wax at least aad dadkan wax dheeraydood wuxuun ku dhaantay oo adiga ku naxariisan jiray iyadoo hadda hadalka xumays iyo maaragtay ugu roonowba ayna ahayn magaalo iskala imaateen le ma noqonayso marmarsiyo excuse ma noqonayso Yuusuf Garaad muu malaynaa inuu xamar ku dhashay inuu beledweyne meelahaas ku dhashay marka hata ka dhigba inuu ku dhashay laakiin kuwa waqooyiga hadday u arkeen in la haybsoo aqoon gaar ah asaga isku malayn walaalkiisa aqoon asaga ka yar soo waa naga weyna hortaan iskuulka baxay oo midda kale qof khas dabeecada jirto qofka kala ku darto Yuusuf dadka baxa oo baararka la farfariisto oo raaca anay ma ahayn ani waxaan ahaa gabar marwa oo la qaba marna waxaan ahaa single mom garooba oo ilmaheedii qofkii lacagta ugu haysay rabto inay tiigsato oo ilmaheeda ka soo kaxaysato I don't have time ma haynin aniga Yuusuf ku raaco restaurantada kula fariisto Yuusuf wuxuu ilaalinayay dadka asaga ka daba dudukada aniga waxaan ilaalinayay shaqadayda أنا waxaan ilaalinaa inuu boss yahay 8 hours ka BBC u shaqeynay bas sida runtaan taas waay waxa aniga aan ku soo jiito asaga u raaco meel cabitaan kala soo cabo baararkii night club-yada wuxuu aad jiray u jeclaa u raaca aniga ma ku jirin I never been night club I was fanaanada ah laakiin never been night club waliba ma tagin aniga night club so aniga marka saaxiibtinimo kale ani isaga igala dhaxaysa laakiin ani suuqan ku dhameey ani taa u malaynaayo waay ani taa u malaynaayo aniga la buugan ka qoray arintayda taa u malaynaayo waxa waay Yuusuf dabeecadda oo dadka dhan ku abuse gareynaa aniga ugu abuse gareynaa laakiin aniga degree fara badan aan dheera koo gabar aha laba waan ka nuglaa saddex wiilasha ila shaqeeya waxay ahaayeen dad asaga shaqada kaga soo horeeyay laakiin aniga waxaan ahaa asaga shaqada kaga dambeeyay Soomaali badan maadaama barnaamijku Real Life Soomaali badan ay aaminsan hawiya la soo qoray Yuusuf Garaad iyo hawiyiisa anuu ma aqoon waliba markuu uu bahalka dhiganay ma garan iska dhaaf asaga qabiilkiisa aniga qabiilkayga ma garanay mana aqoon gaar ah uma lahayn Yuusuf aniga ma fahamtay aqoon gaar ah uma aanan lahayn saas la ajrigad waxyaabaha quruufaadka ah oo meelaha la wareejinayo ma jirin waxaan calafaa iyo galay waa niga idin kaga soo sheekaysaa ku hela calafkaasaan ilaahayaan uga abalhayaa ما فهمتي إن تو إمرسي مركي أنا فيريو إيه وحي ما ركت وناجا هاي أسوق دونا إن حتى somehow حتى هدو دونا somehow إن وناج الله هاي تو إمرسي كدر هي abused me هي bullied me أنا جا ويبولي كريه يوسف ساعده ويبولي كريه so television ما so وطن بريتش ما جوجنا أو محكمة بحاجة كفرنتا لا تكون حكوا ما دعوة it's not that easy it's not that easy because wuxuu ku buli gareynay waxay ahayd powerka BBC da ay siisay hadda waa kaas waxa yiraahdo hadda bal waa kaas waxa ay dhaho oo ragga kale oo jooga oo nafta u keenay Cabdisalaam Hareeriye waxa dhaho ta ana weligeey ilaaban waxa markii Oxford University nalaga casuumay oo Cabdisalaam Hareeri ninka la yiraahdo maxaa la dhahaa wasiirka markii dambe noqon jiray Cabdiraxmaan Caynte dad fara badan Mary Harper gabadhan mar walba Soomaaliland tagto buuga Soomaaliya ka qortay kulina macsuum aniga waa la xushay waxa ay xushay xafiiska Ingiriiska oo markaas Soomaaliya inuu u qaabiyo markaas xafiiska la sameeyay ya UK oo xafiiska UK ka furo oo Soomaalida arrimaheeda qaabilsan markaas la furay dadkii laga la tashanayeen ku jiray waa la casuum because waxa la casuum jaba ay maqleen dadkan waa ka dhaga dheer yihiin dad aan casuumaad gaar ah la isoo diray wuxuu isku dayay inuu yimaado casuumaad waxa lagu yiri ninka dhan la rabo inuu ogaado waxa la ogaanay how media kaga qayb qaata sidee media kaga qayb qaata dib u dhiska dalka iyo burburinta ayuu ku saabsanaa workshopkaas Oxford University lagu qabta inta soo maalmoodaan jirna waa ninkii inta telefoon markuu asagu meel ka soo galay waa wiil kale walaalkiisa oo iska wariyaa Ilyas la dhahayaa imaaday aan wax xumaan hadda wiilkaas oo ugu sameeyay ma jirto laakiin Yuusuf markii inta isoo wuxuu BBC afkaada kuma hadli karto BBC halkan ma uu joogan ku aniga halkan BBC ma uu joogaba myself aniga personally la casuumay
هذا يويديان سيدا ماشي الله قد أقمنا دوا شيء markaas soo noqday waxa uu diray wax la dhahayo qofkan macnaha shaqada ku xad gudub tacmal markii aan gudiga u tagana wixii waa socon waayeen waa fikray markii ma taqaana how many times aan qoro warqadeedii sacilaad oo aan gudbin aadan nuux dhul ilaaha qarso twice asaaga cili aadan ilaahay qarso maanta waa nool nin xataa qabri ku jiro marqaato ma soo qabsanayo asaaga cili waana haya warqadii koobigood oo dhan and I will print it out on my book no ku daabaca wuxuu weer aamino ninkan BBC ma leh asaga ma laha adiga gabar shaqaysata xaaladaha aad ku jirto aad ku raato single mom inaad tahay waxa aan ognahay ninkan dartii shaqada hooga tagin shaqada hadii laga tagaayo ama waa laga wada tagaa shaqaadna ka tagay ama asaa kaliis tagay markii dambe dhacday adigoo wada dareerteen somehow ilaahay iridu furi doona abay laakiin aniga ma joogi karin ma adkaysan karin ma karatay aminoy waxaan ka maqlay qaar kamid ah wariyaashaad isla soo shaqayseen aad baan uga xumahay intaas oo dhan aan kugu celiyo arintan waxaan ka maqlay in adigoo Luton degan oo aad uga fog BBC-da inuu maalmahan tareen ku shaqeynay sida Sabtidii iyo Axadda uu kugu khasbi jiray shaqada kugu qori jiray iyadoo Ilaahay naxariisto uu ka yaagtan deganaayeen dad fara badan ay u dhawaayeen oo waliba ragihii uu adiga ku dooran jiray si uu kugu ciqaabad Luton uga timaado horta wax yar waxa waa Luton waxa u dagay waxay ahayd aniga markii aniga aan ninkii kala tagnay horta waxaan gabadha 27 jeer 27 jeer maxkamad Ingiriiska la geeyay iyadoo ninkeedu dacweynaa ah aniga ninkina ma iqabin waa ifuray uu dacweynaa because markuu dacweynayo he has another name another magac kale blade of birth kale waxa kale inaana aniga shaqaysan nolosha ciriir iga dhigo ilmihiisna aniga korinayo ma fahmid ani struggle badan soo maray magaceeda waan ku talagalay maanta inaan sheego struggle ka soo maray wax la qarinayna ma ya okay xumaan uma qabo ne Yusuf aan xumaan u qabin kanaan xumaan u qabo but my life markay tahay qasab waay my life illa sheegay in la qoro ee kayd noqoto lagu waana qaato gabar kasto aniga iga dambaysa oo sideedoo kale ta mudan doonta waa huba inay mudanayaan waa huba kumaan kun inay haddana mudan doonaan ma garat 27 jeer aniga defendant af Ingiriis waxa lagu dhahaa maxkamadda markii lagu qofka dacwada loo haysto oo isdifaacay qareen ma awoodo because ilmihii aan dhalay aan ka bixinaya kiro aan ka bixinaya naagta gabadha ii heynaysa lacagteeda aan ka bixinaya waxba aniga xataa dhar fiican ma gada karo by that time ya markaas waxa lagu dhahaa mushaarka kor la fiirina legal aid xaq ma u leeyahay maxkamadda markaa kugu saaraya 7 qadar kale saara waxay taa maxkamadda sharafteeda Ingiriiska maxkamadiisa sharafteeda hadaa ilaalin dambi aad lahayn xataa waa lagu qaada inaad dhar suud madow gashato isdifaacdo muxuu markaa Ingiriiska afarta Ingiriisana qiinina isku difaacay noqotaa because qareen ma yeela waliga qareen ma yeela maya aamino saashid waxay tahay isagu muxuu maxkamadda 7 sababta maxkamadda waxa waay ilmahayga ima tusto ninkii ay dhahay adu markaa mid u diidaa goormuu rabaa inuu arko laba maalmood week maalinta sabti axad haw yimaado ma imaanay ilma rabiyo anaga waa la rabaa believe me ma ilma ma laba bari markuu u yimaado asaa maqnaaha maxkamadda maxaa ku qoran maxkamadda kood oo dhan soo saaray maxkamadda amar maxkamadda soo saar waxa ku qoran hadii labadiina mid kamida uu jabiyo go'aankan waa inay halkaas ku istaagtaa oo maxkamadda la soo noqdaa sababta 27 jeer maxkamad la taaga waxa waa laba bari markuu ilmaha wado oo maqnaa ma rabiyo wuxuu rabaa inuu guriga soo galo oo sida bariga oo aamino qabo kale shaax cabo oo lugaha kala fiirsado oo musqusha iska galo oo iska soo baabaashaan oo xaq ku dukaanada ajnabiyan kala hawad ajnabiyan kala naani adiga isku hormarqayno dhaqan diinna maaha dhaqan Soomaaliyeedna maaha isku hormarqayman abay caruurta say waa raayaan adiga saata xataa haydiinaan ma bii qabtid caruurta say waa fiican yihiin haddii aniga aan nafteedu u yaabo oo arka inay sakaraad ahaan dhimar raga badan anaaba dardaarmayo dhahay ninkaas dhalo meeshaas degan hala siiyo ilmaha ya laakiin ay hormar marqaysama ah 27 jeer maxkamad Ingiriis liigay anigu qofkii wadankan wax keena ah sharci buuxa leh anigu lay magan gelin asaga because magac markuu isku dhiibay qaxooto iska dhigay oo tax payer oo canshuur bixinay 27 jeer aqbalay si aniga Soomaalnimo u ilaaliyo anigu dacway kare waa dhihi kare this guy wadankan waa keenay magacaasana I will never ever say ma dhihin aniga adise ku garan weysa marka adoo anigina iga dhalin badan tahay ma aan ahayn ku garan weyn maxaa aniga inta tura maaha ninka haduu kugu xumaaday labadiina la isku makiin torin abay hooyada ma dhal Soomaali Maxamed isku teen Soomaali Samatra Soomaali Farax whatever you are but laakiin
waxa ixtiraama waxa waa marka Nasri Salman iyo Sulaaqa bari ay weynaadaan sida hadeer oo kaleeto ya habartayna adoogan xirta leema la dhahayo absolutely I don't want that because hooyaday aabay si kasto isu khilaafa habartay adoogay ma xirin maxkamadda qoyska aan jirto ya sharkeyga noo cadaada rabaa maxkamadii aakhirkii maxay ku soo gabagabowday ma sababtaad markaa ugu maxkamadda waxay soo gabagabowda markii la arka mar walba inuu igeynayo oo ilmi ma tusta leeyahay ay waxay leeyahay in la yiri gabadha la xaal hadda kadib maxkamadda ma keeninba ha imaanin maxkamadda gabadha la xaal waxba xukuumad diidan gabadha ilmaha waa ku tusay anna maxay sameey meel waxa jirta guardianship la dhahay oo ilmaha lagu haayo because aniga ninka shalay idan waa u sheegay xataa abuse-ka ninka shaqada ugu haayo waa u sheegay waxa walaalo aniga labadiina ninkaas shaqada unbuu madax ka yahay adaa iga xiga adigu hay abuse adiguna hay igu dar inkii kala meesha ii fadhiyay laba abeeso aniga midna shaqada ii fadhiyay midna waxa maba noolaanaye way maqli waay waxaan ku iri marka adigu shal hadaad aniga ixtiraami lahayd oo ina xariisan lahayd maanta aniga maxay toon kaama fogaa aniga maxay sameey saanan depression dambe iigu dhicin saanan river thames dambe iyo webi dambe isku tuurowgiis iigu soo dhicin saanay banaaya iigu soo dhicin waxaa sameeyay inaan arag inta ilmahayga koraayeen inaan ninkaas indhahayga ka qariyo oo meesha caruurta lagu haayo u geeyo ilmaha 2 hours lacagta hada qaybteeda la baxo asaa hadii wax laga qaado maanta oo social service geeskaas fadhiisay baldheer ilmiyaas la fiiro hado reviewgii wixii la qoray maxkamadda lagu celinaa maxkamadda waa akhrine waxay arkay wax dhibaato oo meesha aan ka jiraba inayna jirin maxkamadahan abaayo qofku markuu isagu ku dacweeyo oo legal aid iyo qaran free yahay dadka canshuurta bixi lacagtooda waay waxa lagu arkaa inaad public fundkii dadkan wadooyinka loogu dhisi lahaa waxbarashada loogu kaalmeyn lahaa inaad wasti garaynayso oo qasaaranaysa lagu arkaa ma ogola marka dambe waxay noqotay gabadha la xal ila yaraa gabadha la xal ma meesha aan ku arkay aboo maya gurigaan ku arki maysid baraf hadawda ay xataa inta ku arkay waxa gooy guriga ugu arkay gurigaana degan isma qabno marka inta xumaan imaan lahayd magaceedii ilmahaaga intay yaryar yihiin adigana maarata emotional aad tahay oo wax kasta aad gocanayso isbata inaad aragba ka habartaa ma adoogaana ma waa ilma isu dhasheen waa xumaad xiriirka soo maaha kumina ixtiraamo wadan shisheeya joogta xaq waxa u leedahay istifaacis marka maxaa waay ina avoid garayso ina aragta asaga ilmaha laaka xaq u leeyahay soo ilmahayga way ku koreen way arkayeen aabahood halkaas ugu geynay marmar guriga ugu iimaanay wadaay marmar guriga ugu iimaanay oo fadhigo la fariisanay anigana qolkeegan ku xabisanahay bas ninkan aniga ajnabi aan kalana aragtida inta soo dhan wada dibsanaysa waatay hadan markaan dib ugu noqdo maxaa waxaan la isweydiinayaa okay suicide iyo reverse teams ba taagnay Soomaaliya maxaa ka istaajiyay oo farajkii ilaahay ku soo diray ka joojiyeen ishaligtooda dhibaataysan maxaa wax badan abaayo horta nolosha adiga ku soo marta marka nolosha adiga wixii ku soo maro wixii aad ka ku soo maro of course waad gocanaysaa waad ooyaysaa hadda sameeyo kale laakiin waxaa rabaa in adiga wax barasho ku noqdaan ina adiga ku aarsato inaad adigu maaragtay ku dagaal tagto dambe lama rabo aniga dhibkii waa ka baxay hadda aniga waa ka baxay يوسف قرادني ما أبيوساي أو ما أمين وحشاقية هبين كيس لحلقي ماشي أتاقني محاك مو كلفينا تشوشي سوقو آنكي هاينا دو حسيا شو أو شغلة دقيقة داد ماشي أتاقني داد لهايدي ستيل مركز لهايدي ستيل دقيقة داد ماشي أتاقني أو بيقى تاقني محاكو بدلي كاتشوشي وحاي بدلي هرتو إلهي سبحانه وتعالى وحايدنا أدونك أنت سواك قندون تادحي أدونك وحايدنا نرال بايدنا أدونك أنا مركز أوريري oo aan halka taagnaa oo aan rabay inaan boodo waxa horta idaahay qaabka u booday because calooshayda aad ay u wantaan qof culus ahay sahalku ma kori karo maasha but I wanted to jump whatever happened say danta ba ahaatee waxa ay joojisay gabar markii dambe ay sheegtay inay Jarmal tahay oo dalxiis af Ingiriisi gaja taqaano ayaa waxay ii weydiisay halka uu ku yaalo tiyaatar Hebelow tiyaatar adiga bushaas ka soo horjeeday attention kayga soo jeedisay marka halkii aniga aan ku talamayay see u boodaa attention kayga soo jeedisay gabadhii way ogaatay inaan ooyay aragtay
waxay weydiinayso waa iska dhaafta garabka iga qabatay qofka yaqaanay meesha waxaa ku yaala meel oo dalxiisku marmaraan waay kuraas la fariisto oo webiga lagu sii jasto qofku oo webiga iyo doomaha iyo daawan kara ku yaala kuraastii fariisisay kabacdi waxay igu tiri do you want tea waxaan ku dhahay high blood pressure aan qabaa tea ma cabi karo iyo coffee laakiin dikaaf aduuyaha malaha waa iska cabi karaa amaan coffee neera ku yiilay stationka temple geeskiisa aan tagnay way i fadhiisisay cabitaankii ii gaday danna waxay igu tiri don't do something stupid waayahay eri anigana bartaas meelaan ku tukan kara maaha laakiin bartaas waxaan bilaabay astaqfirullah ilaahu cafi laakiin ooyintu waa socota ooyintu waa soo badana because maaha keliya inaan saad ka ahay isboodidii laakiin waxaan haddana saad ka ahay sababta aan ugu fikiray inaan isdilo anoo qof muslima ah dan nolosheedina dib usoo xasuusta yaraanteydii hooyaday aabahay walaalahay wixii dhan ay soo hormarmaraan daatana aan go-aan qaata ah inaan go-aan gaaro go-aanka soo gaaraya marka guriga haddaa tago aniga ma nasan karo go-aanna ma gaari karo hoosteedu ka dhalanaa shaqadina waa iska soo rabaxay kaa maxay noqotay inaan balaakaabka waa lacag badan yahay idinka waa ogtihiin inaan balaakaab kiraysto oo waxaan deganahay faynus daris camala ahayn markaas waxaan deganahay eastham aan deganahay meesha kow faynus ku arkeen wadanka kabacdi inaan balaakaab kiraysto intaan balaakaabkaas ku jiro waa ooyaya maanta ninka wuxuu leeyahay biyo ma ku siiyaa maya xanja ma ku siiyaa maya biyo xanjamaan rabaa inaad go-aan gaaraan rabaa intaas between meesha aan ka raacay ilaa iyo gabadhi kafeega gadaysa iyo wacday iyo waciriye ilaa iyo eastham oo fogaan dheer ah oo tarankuba u soconayo saacad maaragtay wax la jira intaan sii socda go-aan waxaan gaaray instead inta aniga isdiri lahaa labadan nin ina ayaga ka takhaluso kee sahlan marka kan shaqada BBC u dhiibta aniga ma ka takhalusi karo laakiin kan laakiin waa ka takhalusi karaa kan waxa waa guura isku keenhaya guurka hadduu dhamaado meesha ku dhamaada waa imid markaan imidna wixii oran jiray markuu yiri waxaan ku yiri sidii hore maaha so from now on afkaaga laba liira saaraysaa ilama hadlaysta aniga isla markiina waxaan wacay yellow page-ka waxaan ka wacay locksmith qolka fadhiga ayaan u samaystay qunful si aan qayladiisa barriiqiisa uga badbaado markaa masquul hoosaa ku taala guriga laba masquul uu leeyahay guriga qaybta kore ka degan baan ku yidhaahno qaybta hoosan ka deganaana halkaas bay iga bilaabatay marka inaan xanuunsanahay may xanuunsanahay xataa ma oga laakiin inaan daktarka u tago inaan wax u sheego dadkii horta Soomaalida markaa u sheego waxaa lagu daktar isku tageen daktar hadaa isku tagto oo la ogaado waxaan ku haya u sheeshato gaalada baa imaanaysa ilmaha laga guranaya horta markii dambe go-aanka waa gaaray inaan daktarka u tago laakiin goorma u tagay weli anoo xanuunsan gabadhii dhalay waxay u tago markaan dhalay kadib waa la ibaaray waxaa la ogaaday depression inaan qabo dawo inaan u baahanahay in la isiiyo canugtina aan naaska nuujinayo laano canugta naaska nuujinayo inaan daawo qaada karin dan psychologist la ii diray anu luqadii waa aqaana oo qofka tarjumaad ma u baahnayn sirtayda xogtayda saas ku ilaashan tahay marka inkastoo qofka tarjumaada xataa hadduu Soomaali aanu sirkaa bixin karaynin oo isma garanaysaa ma fahamtay dadkuna may garanaynin halkani waa BBC lana maxay too ka dhagaystaa hirka gaagaaban wajigaaga qof ma arkay I don't know waxaan ku suganahay aniga waa qaratay marka waxay noqotay in la yiri gabadhina nuujinaysa mise waad ku faraxsantahay inaan iska goyso maxaa aniga gabadhan inaan nuujiyo gabadheedu waa rabaa qof shaqaalaha ka maqanaan ahaa haddii aniga aan xanuunsanahay oo aanayda iska siina okay kaniini la ii qoray oo aad u milligramkiisa yar yahay dan waxaan bilaabay inaan caafimaado oo dawadii qaadat inaan caafimaadaan bilaabay marka waxaa adiga ayaa go-aan ma gaari kartid depression markaa qabta astaamiis waxaa kamid qof go-aan ma gaari karo qofku maanta dhan isku yaaca maanta dhan waa oynay maanta dhan tiir fuulan go-aan ma gaaraysid go-aan ma gaari kartid go-aanka kaliya gaaraysa waxaa inaad isdisho markaa rabto taasaa adiga gaarsiisay mana isdirin alxamdulilah allah ma iga soo badbaadiyay waa inaan markaa aniga maaragtay noloshayda maaray maalintaas noloshayda majaraha u qabtay magaceeda maalintaas ayaa gabadha umusheedii markii aan ka baxay oo aan dhalay aabo intaan la hadlay aabo markaas allah u naxariisto noola America u socdo laakiin wuxuu jooga Nairobi aabo wuxuu ugu maanday diinta islaamka ma ogolo gabadha oo maaragtay nifaasku ka socdo in la furo waa in sugta intaad ka daahirsato waan sugay aabaa wacay waa la iga furay
عدا laga bilaabo gabadhan way ka furan tahay asoo dadku wuxuu ugu sheekeeyaa aniga ma furin iyo rajactu yar iyo waxaas ma jiraan laakiin rajactu wax yar ma jiraan rajactu maxaa la dhahaa meel hoogan naar ma ku noqonaysa rajactuduna waa in la isla ogolaado sida meherka la isla ogolaado kale la isla ogolaado sidii kumana hadda iyo marka dan amina hadda intayna niman haddaan kugu celiyo su-aashan markii dhaweyd ku weydiinayay ma jirtay tan inaad Luton adigoo degan shaqada cadaadisku heeray gaadhay in axadaha lagu yiraahdo soo bax Luton hadayna waa sheegtay ana ka booday abay Luton aniga horta waxa marka hore u dago waxay ahayd guri blasto ku yaala markii anaga lugay isku toosay guri blasto ku yaala mortgage ku qaatay si aniga la iigu keeno hooyaday iyo caruur kale oo iga maqnaa labadii inaan soo dhalay inaan kale walaashay dhashay iyo hooyaday maadaama markaas maxay to aabay wuu dhintay aabay markuu dhintay hooyaday waxay maaragtay ay u joogtaa malaha ilmihii kalena ay dhoofeen marka haddii aanan laba qof oo wada shaqeynaya aad ahayn home office wuxuu kugu xujeynayaa xagee dadkan dajinaysaa marka waxay noqotay in aan maaragtay aniga gurigaas 3 bedroom blasto ka gato mortgage ku qaato ka bacdina hooyo caruurtu dacwada oo la ii keeno kadibna aan mortgage ka baxo because ma awoodi karaayo 7 caruur ah iyo hooyaday marka aan wax lacag aan qaadan dependent ugu ah mishaarkayga ma awoodi karaayo marka aan mortgage ka baxo marka saa u helo guri oo waafi ah oo nagu wada filan hooyaday qolay igu dukatay masquul gaaray wax kasta heli karto saa u hel ayaa aniga horta Luton ugu guuray marka Luton 32 kilometer ay u jirtaa Central London mile okay Luton marka ninkii qabay aniga markaan dhibaatadii maaragtay odagii markaan soo kala baxnay kee shaqada haray kee shaqada sida meesha uga socotaa anina ma rabin kaniin dambe la ii qoro then again I got depressed hadana again I xanuunsaday only Yusuf garadartis markaan ma ku jiro ninkii waa kaligii oo markaan Luton degantiina uu soo baxay wuxuu kugu sameynaa waxyaabo oo emotional abuse waxa kamid ah oo kale barnaamij oo keensanaysa waxa laga wadaa barnaamijkan intii xasuusta barnaamijkan naga fiidso oo fiicnaayo universal u bilaabi jiray kadibna dhowr ka waxay raadiyaha u rabay magaciisa sidoo waa u geeyay Yusuf marka wuxuu sameynaa wuu ku diidayaa fikirka 3 bilood kadib oo bil kadib isaga la soo baxaya wuxuu leeyahay barnaamijka noocaan oo kaalay samatar la yiraahdo sameynaya war maxaad sameynaysaa waxaan soo barnaamijkaygii maaha soo anigu kuma keensan hadii la sameynayo anigu inaan sameeyo ma dad badan ay ku dhacday Cabdisaar reeri way ku dhacday waa ogahay aniga marqaatiyanka way ku dhacday bas Cabdisaar wuxuu ahaa wuu furfurnaa wuxuu ahaa nin creativity-giisu fiican tahay nin maxay marka wixii uu la yimaado marka saas laga celiyo oo qofkii isla soo taaga maxay taas what is it Yusuf garaad dadka ma dilaynin laakiin waa qayb kamid ah ilaa markii dambe oo gaarsiin iraayo dhagas Yusuf baaskayga tahay waa kugu ixtiraamaya taas laakiin hadda wixii ka dambe no verbal communication aan adiga nama dhexmari karo Luton ku soo harta Luton aan deganay uu ogyahay sabti axada railka waa la dhisaa biraha tareenada waa la dhisaa tareenada saan uma socdaan sabti axada meel walba saas ka tahay London sabti axada ugu qoraa shaqaale kale aniga ila mid oo ku qori karo oo maaragtay meel bush house u muuqata deganna waa jira ana ugu qoraa ana taraanka aan soo raaca hatta hadaan alla ya nafta ku imaan si raacba ma aha maxaan sameynaa marka jumcaha markaan ogaado inaan sabti axad ku qorana masaajidka seexana wariga ma maqashay gabar BBC u shaqaysay hay'ad noocaas oo kale oo masaajidka seexayso masaajidka markaa xagu masaajida qolal laba qolo masaajid oo mid rag ku dukadaan mid gabar bush house ku dhex yaala because aniga inaan shaqeeyo waay ninkan hadii kale uu igu marmarsoonaa shaqadii laga eriya ma shaqeyso haduu ku yiraahdo ku dhamaatay ma tagala oo soo maqlee soo ila xukunka u dhiibatay ya qofku markuu meel kaaga adag yaa nacasna yaa doqon yahay sinana uga baaqsan maysid sinana inuu ku dhibaatay uga ma baaqsanis ya intaan barkin soo qaatay oo waxaaga soo qaatay ku beertay yar hoogsado ayaan anigu masaajid ka dhigtay oo qof salaada tukada ahaaya salaadeeda markaan tukada cishaha oo dadka dhanbaxaan masaajidka seexan jira aniga si aan aniga shaqadaas aan u beer dareynin oo shaqada sida iga raba uga soo baxo ilaa ninkan xunka in xariisan maayo Soomaalinimana iigu turi maayo boosnimana iigu turi maayo wuxuu iigu ma ogaayeen shaqaalaha BBC-da shaqaalaha ila shaqeeyaha waa ogaayeen inaad meesha seexay waa ogaayeen waliba wiil maxamed wax ka qaban karaysi wiil maxamed Cabdalla yira oo hadda jooga ayaa nin kale oo Afrikaana oo meel sare xukumaaya markaas ayuu u sheegay wuxuu ku yiri gabadha dhibaatadaas haysata ninka uu carooday wixii ugu dacwada soo gudbay dacwadii waa gudbiye wax buu sameeyay waxa jirtay gabar kaari black baan la dhahaayo oo intay depression noqotay isdishay hada xasuusato
oo madaxa ahayd African and Middle East ninkii maalintan u tagay tusaale soo qabtay waxaan ku dhagayso hadda ka hor I tried to kill myself hadda mar labaad ma rabo inaan isdilo markan dambe on depressed noqonaaya asaga abuse-kiisa nin ma jooga markaan waa Yusuf bas waxaan daawo qaadanayay 9 bilood and then hal bil sanad iyo 2 bilood daawada ugu socota laakiin 3 bilood dambe daawada la iga yareynaa because side effect-ga daawada ayay ii dhibeen maxaa dhacday suuqa ku dhameeyay waxaa dhacday inaan dhinaca midigta inaan u socdo dawadii dhinaca midigta side effect-ga dawadii dhinaca midigta u guraa oo Yusuf shaqooyga rabaa si kasta hadaan dhawaa jirana qolada waxa dambe ay siin karaan adiga inaad shaqeyn karin dhakhtarku kuma siin karaan warqad inaad shaqeyn karin warqad waxa jiro waxyaabo sharci oo asagoo inuu waxba ka qaban karin diidi karino laakiin qofka inuu fasax xanuun aado ma qarin jirna aniga fasax xanuunkayga aniga anti depressant tablets ka sidoo igu soo qala oo kanjay la dhakhtarkayga recordkayga waa haya why Amina why adiga shaqo saan weyn oo ka shaqeeyo why ninkan ku abiso why dadka ugu why u sheegay dhakhtarkay ay dhahay Amina hadan ku weydiiyo markii dambana abaa markii daawada iyo dhamaata go'aan waxaan gaareynaa iscasulo laakiin iscasilaadaas waxay socotay 8 bilood oo kale iscasulo oo aan ka nasto oo aan bas because aniga asaga ma bedeli karo aniga ninka guriga igu abuse waa bedelay waa kala tagnay laakiin aniga Yusuf shaqo ma ka eri karo qof walbuna abuse aniga kaliya ma ahayn laakiin aniga waa ugu nuglaa because gabarna waa aha maxay ahayd xaalado badan oo shakhsiyada family waa haystaan waxa dhan ogaa waxay tahay intaas oo dhammi markay dhacayeen dadkan meesha ka shaqeeya idinka isaga idin madaxa qof kastana markuu meel joogo isaga ku maamuusan oo hadda wixii fiicnaadaan isaga ku magacaaban hadda xumaadaan isaga maxay kula tahay inuu ku kalifi karay Yusuf xilliga shakhsiyadiisa qof bartibaatay qof la soo shaqeeyay sidan aad ka sheegayso oo dhan baanan ka wada maqlay si ka badan dhamaan badalka soo shaqeeyay in uu meeshii uu isagu xukumayay ay fool xumaato maxay isaga ku kalifayay bay kula tahay muxuu ka faa'iiday waxa iga xasuusinay inay Amina ahayd qofka kaliya ee ka tagtay shaqadii BBC-da iyadoo aanay diyaar u ahayn shaqo kale nolosha Amina Muuse Weheliye maaha mid lagu soo koobi karo barnaamijyo laba sidaas awgeedna waxay gacanta ku haysaa buug koobaya guud ahaanba nolosheedii waxa uu leeyahay buugu qayb maqal ah taasi oo u sahlaysa dadka aragga naafada ka ama akhrisku u dhibayo waxa uu soo baxayaa sanadka dambe haddii ay barraali ka noqdo haddaba haddii adigu aad jeceshahay ama aad u baahan tahay inaad si toos ah ula xidhiidho Amina Muuse Weheliye waxaad haatan bashaashada hortaada aad ka aragtaa dhammaan ciwaanada